gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Professor Aadan Xaaji Cali Axmed oo telefishinka Home Cable kula hadlay xafiiskiisa magaalada Hargeysa waxa uu hambalyo u diray dhammaan shacabweynaha Soomaaliland gaar ahaan bahda cadaaladda iyo ciidamada Soomaaliland. marka ugu horeysa waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaanba iyo dhammaan hay'adaha qaranka ee kala duwan hay'adaha kale madaxa bannaan axsaabta qaranka iyo dhammaan ummadda qaran weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan waxaana leeyahay hambalyo sanad guurada ay noo curatay ay noo dhamaatay iyo ka cusub ay noo bilaamaya waxa kale inuu si gaar ah ugu mahadnaqaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ina siiyay amni iyo amaan ina siiyay nabadgelyo iyo barwaaqo iyo nolol iyo deganaansho iyo dawladnimo iyo kala dambeyn iyo ummad wanaagsan taana Ilaahay un baa laga helaa bil Ramadaan bay ku jirnaa waxaan iyagana Ilaahay uga mahadnaqaynaa alxamdulillah Ilaahay nimcooyinkayna siiyay waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu inoo sii wado insha Allah intay dadkeena iyo qarankeenu jiro waxaan halkan iyagana hambalyo gaar ah uga dirayaa dhammaan bahda cadaalad garsoorka iyo cadaaladda Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaanba iyaga iyo xaasaskooda iyo caruurtooda hambalyo gaar ah waxaan leeyahay hambalyo sanad guurada 18 May ee qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kaloon halkan hambalyo uga dirayaa ciidanka qaranka meel kasta ay joogaan ciidanka qaranka ee kala duwan qaybihiisa kala duwan meel kasta ay joogaan ee mar walba u heegan amniga iyo nabadgelyada iyo kala dambeynta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Aadan Xaaji Cali Axmed waxa uu ugu baaqay shacbiga Soomaaliland inay khilaafaad kasta oo ka jira dalka ay ku xaliyaan isu tanaasul iyo wada tashi taas oo ku tilmaamay inay ka mid tahay waxyaabaha ay Soomaaliland ku soo gaadhay halka ay maanta marayso. ummad baynu nahay ummaddu markay nooshay hadii jiraale dadka nool boqol hawlood ba ka soo dhaxbaxa murana ka soo dhaxbaxa waa dad shaqaynaya waa dad noloshu way socotaa waa tareen socda marka arrin kasto inuu dhex yimaada waxaan ku baaqaynaa anigoo mas'uuliyadda afka qaranka ee qaybta aan madaxda ka ahay iyo mas'uuliyadda guud ee ummadda iga saaran ku hadlaya waxaan ku baaqaynaa in lagu xalliyo wada tashi is-ixtiraam kala dambeyn hoggaansami iyo mar walba in la isqadariyo iyo in danta qaranka la eego qarannimada in la eego wada jirka in la eego wax walba way isbedelayaan ummaddu laakiin way sii jiraysaa qaranku wuu jirayaa oo baryahan dambe waxaad moodaa anagu maxkamadahan joognaa dadka xoogaal baan u nahay guntoodaanu ognahay waayo dadkii oo is haysta ama garnaqsanaya ama murmaya ayaa noo yimaada waxaad moodaa in adduunyadu ay dadka ku sii weynaanaysa qalbiyadeeda oo ay aad ugu balaaratay oo ay qalbigooda buuxisay marka taana waxaan leeyahay Ilaahay toobad ha loo keeno adduunyada lagama dhargo waad arkaysaan waxa aanu hadda jeer aragnaa ummado dhan oo dhulal isku haysta iyagoo dhaxal isku haysta iyagoo mood iyo noolba isku haysta marka ummadda aanu halkan waxaan uga soo jeedinay Ilaahay u toobad keenaan inay ogaadaan adduunyadu inaanay qiimo badan lahayn inay dalkooda u sacrifice gareeyaan inay dadkooda u naxaan inay xaqooda ku eekaadaan. Maxamed Kuraase, Home Cable TV, Hargeysa.